المرسلين إلهي با محضلة مركا كوباد إنه صغي وإن سوق عرسية بشهر رمضان خير كله إسلام مركانا إن معلمه خير كا لها سوق إنه وهبي عاوة إنه بلا ميا يدنا إنه صغي بمر لبعض محضلة وحنا إلهي كرتين إنه أنت إنه حدينا aynu noqono kuwii nabad qab ku guta wajibkeeda maanta ay bisho ahayd 22 waxaanu bilownay qorshaheenii aynu ku qorshaysanay aynu u qastinay inaynu maalin kastoo khamiisa inta roobabku socdaan shaqaale weynaha dawladda hoose iyo bulshada reer Sheekha dhalinyarta u badan aynu ka hawlgalno nadiifino buurta inagoo markaa inta awoodeena aynu ka nadiifinayno waxyaabaha uu roobku dhigo had iyo jeer saaqeedaha daadka faraha badan leh iyaga laftoodu iyo marka daadka uu soo dhagaxaanta burburin soo rogo ee wadada xaniba iyo waxyaabaha qashinka ah marka wadada inaga xanibaya ayaynu qorshaysanay khamiis walba inaynu ka nadiifino inagu iskeenaynu ku qabsano marka maanta maalinteeni koobaad khamiisteeni koobaad baynu bilownay runtii wax badan baa inooga qabsoomay oo waynaga intaas oo dhan ay soo aragnay nadiifinay waynu uga mahadnaqaynaa dhammaan shaqaale weynaha dawladda hoose ee saaka sida tabarucaadka uga soo qayb qaatay dhalinyarta degmada Sheekh kooxaha sportska kala duwanaa saaka iyagu naga soo qayb galay iyo cid kasta oo ay ka mid yihiin hawlaha guud iyaguna qayb inagala joogtay saaka sida injineer Maxamed Cali groupkiisa ka aad iyo aad baynu uga mahadcelinay runtii waa tusaale wanaagsan waxaanu banaynaynaa jid baynu banaynaynaa jidkuna had iyo jeer nabiga Cali salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyay wadax yarood ka qaado laamiga ama wadada ayaa wax weyn ka taraysaa moogtay aakhiradaada iyo ifkaba halkan moogtay waa meesha aad arkaysaan oo waa duuda weeye dhagax baa ku soo dhici karayo wadi ka arkay intaasoo saacadood laamiga xaniba marka iyadoo bil rabadaana in dhalinyarta iyo bulshaweyntii shaqaaluhu ay koob ka yihiin bay nagala qayb qaataan oo 4 saacadood oo kombilida ku jiraan halkan aad iyo aad baynu ka mahadcelinaynaa waana tusaale wanaagsan waxaanaynu leenahay dhammaan dhalinyarta reer Sheekh iyo bulshada ku nool oo barnaamijka nagala qayb qaadan karta inaynu joogteynayno khamiis walba haddii la hayraado inta roobku socdaan halkan bay noo ballana 7 subaxnimo imaanaynaa ilaa 12 wixii aanu qaadi karnaa baynu iskeedu qabsanayno waxa muhiim ah dhalinyarteenu inay ogaato inaan ceel aynaan nagu qodin bulshadeena ama degmada reer Sheekh aanan u qodnay cid aan inaga haynaan u maqnayn ilaahayna ku tala saarayna hadii la hayro marka taa aad iyo aad baan dhalinyartu ugu goorinayaa ha ka soo qayb qaataan ciddii fikir haysa iyo ciddii wax taraysa iyo ciddii fikir haysa dhalinyarteena ama bulshadeena reer Sheekh baa Sheekh Waabtis iyo ciddii moogtay barnaamij ama fikir nagu soo kordhinaysa iyo ciddii kale moogtay wax tarkay nooga keenaysa buurtaba insha Allah khamiis walba ay noo ballan wana soo dhaweynaa tusaale imka dhalinyar baa saaka moogtay noo soo jeestay magacyadoodan xusi doono inaynu ku beerno meelaha baarki kale mar haddii ay boqoli soo galeen laamiga wadadii halka inaga dambayso kale boqoli baa dooxii baa soo durkay kayntu marka had iyo jeer xididkeedu iyada ciid soo haysa marka dhalinyar baa soo jeedisay saaka in kayn lagu beero waliba lagu beero dhirtaan aan xooluhu cunay marka aad iyo aad baan fikirkaas oo kale uga helay waanaynu ka hawlgalaynaa waana qorshaheena koobaad baynu ka dhiganaynaa xaggii bilicda iyo quruxda wax bay nooga taraysaa ciidiina retashan bay ku sameynaysaa way noo haynaysaa sidoo kale laamigiina wax bay ka taraysaa wadada aad baynu markaa u soo dhaweynay qodobka kale aan doonayna Chinese-keenu uga faa'iideysano waxa weeye xalay shil baa ka dhacay dawga ciddii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto family-gii ka geeriyooday inaan ka xalay taraga ku baxayna waynu ka tacsiyadeynayna shilka baabur ku dhintay ciddii kale wax ku noqotayna waynu iyadana ilaahay ha u boogadhayo oo u ducaynaynaa laakiin waa barnaamij waa hawl joogto ah oo mar kasta dhacda runtiina shilku waa wax jiro oo waa qadar weeye uu dhici karaa qof walba halkii loogu talagalay buu ku dhimanaya iyo xilliga loogu talagalay
iyadoo qof waliba halkii loogu talagalay iyo xaaladii moogtay siduu ilaahay ugu talagalay ku baxay oo aynaan mid aynu moogtay waxba ka odhan karnaan ahayn haddana waxa muhiim ah markuu shil dhaco had iyo jeer gurmud baynu u baahannahay imika tusaale haddaan usoo qaato kiiskii xalay oo kale sida sawirrada ka soo qaadan doontaan gidaarkuu ku qabtay darawalkii gaadhigu sabadaas inaga dambaysoo kale ku qabtay oo goolada labaad ee marka dawga laga soo galaa dabadeedna gaadhigii iyo gidaarkii baa isu qabtay waxay noqotay inkastoo dee meyd ahaa haddana waxaynu kaga saarnaabeyn weynay 4 saacadood baa dhowdhoweyn la rifanaynay haddaynan cagaftaa haysan oo inaan gaadhiga inta kor ugu hejinno aynaan dabeedna moogtay aan meydkaa laga soo jiidin wax kaloo lagaga saari karaba lama heleen oo degmadii yaalla marka mar haddaan wax kale oo moogtay dee waa halis weeye dawgina waa mashaakil mar walba taagan waa mashaakil runtii u baahnaa moogtay in hore looga diyaargaroobo oo qalabkii ku habboonaa markuu shil dhaco iyo waxyaabaha kale markaa gargaar u baahan ee dawga ka dhacaba aynu markaa aynu kula tacaalinayn kaga hawlgal lahayn buu u baahnaa in halkan u yaallo waxaan markaa cod dheer iyo cod gaaban baanu gaadhsiinaynaa dawladda dhexe iyo sidoo kale ciddii kale wax naga tari kartaba inaynu u baahannahay wiish inaanay ka maarmaynin degmadu wiish halkaa u yaalla istabtaa la dhigo oo marka hawlahan oo kala dhacaan gurmudka laga bilaabo markaa lagu hawlgalo ayaynu u baahannahay iminka gaadhigii waddada qayb ka mid ayuu haystaa waana booyad aad u weyn weeye booyadaha waaweyn waxay noqonaysaa waa in wiish looga doono degmo kale looga doonaa bay noqonaysaa mudduu sii oolanaya gaadhigaasi meesha markaa qodobkana waan soo jeedinayaa sidoo kale dawguna wixii kale isagana hawle looga baahan waxaynu kelmadeenna kusoo koobaynaa waxa weeye qodobka waxaynu u baahannahay wiish baynu degmada u baahan tahay kolley annagana awooddeeda maaha uu naga awood weyn yahay dee cid kasta wax nagala qaban karaysa waa mid aynu moogtay markaa baaq dheer gaadhsiinayno xaggan dawgana insha allah haddii la idhaahdo hay-adaha dawladda ay khusayso iyo annaga wixii karaankayaga diyaar baynu u nahay kolley waa isku xurkii somalilan oo dhan weeye dawgu waanaad aragtaan dee siduu moogtay dayac badan uga muuqdo muddooyin baa la xaadhin ciiddii roobku keenay baa saaqeydii buuxisay mar haddii saaqeydii ay buuxisayna daadkii laamigii buu soo marayaa waxalle wixii ciid jitay buu soo dhigayaa waynagii habeen afraadoo kale kowdii baynu halkaa joognay oon dhagaxa ka gurayn marka insha allah haddii ilaha idhahdo waxaynu rajaynaynaa in iyadana aynu shaqadeeda halkaa kasii wadayno aad iyo aad